بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعنا وناكسن داوديال دلكينبا meel kasto aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa 16 bisha December sanadka 2021 barnaamijkeena daawadayaal qodobada aynu diradda ku saari doonno waxaa kamid ah TPLF oo weeraradii ugu cuslaa ku soo qaaday goobo ay ku sugan yihiin militariga Ethiopia iyo goob lagu tuhmayay in uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dagaaladii ugu qaraaraa oo ka soconaya gobolka Amxaarada iyo xogo kale oo dheeraad ah ee daawadayaal mar kale soo dhawaada daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo dhanka YouTube-ka naga daawanayso channelka subscribe noo saar haddii aad dhanka Facebook-ga nagala socotana soo follow garay waxaan kaa codsanaynaa muuqaalkan inaad noo sii share gareyso mahadsanid aynu ku bilowno dagaal u qaraar oo u dhaxeeya militariga Ethiopia iyo sidoo kale jabhadda TPLF ayaa lagu soo waramayaa inay ka soconayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Amxaarada waxaana wararku ay sheegayaan in maanta dagaalo dhowr jiho ilaa 6 deegaan ay ku soo qaadeen TPLF oo iyagu markaan isbidaya inay la soo baxeen awood aan ahayn tii hore ay adeegsanayeen wararku waxay sheegayaan in TPLF ay soo weerareen goobo badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada militariga Ethiopia halkaas oo dagaal qaraar uu ka soconayo aaga ugu xoogan ee dagaalada ay ka soconayaan waxaa lagu sheegay deegaanka Debrecen halkaas oo lagu tuhmayo inuu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed sida wararku ay sheegayaan TPLF ayaa magaaladaasi waxa ay ka soo galeen ilaa 4 jiho oo ay ka soo weerareen waxaana halkaasi la tilmaamay in militariga Ethiopia saldhigooda ugu weyn waa kuwa dagaalada ku jiray uu ku yaalo sidoo kalena halkaas ay tahay saldhiga hagida ciidamada militariga iyo sidoo kale kuwa ay garabsanayaan intaba TPLF oo qiyaas ahaan qiyaasanaysa in halkaasi ay ku sugan yihiin xukuumadda Abiy Ahmed madax ka tirsan sida ra'iisul wasaaraha iyo xubno kale sida golaha wasiirada qaarkood iyo saraakiil sarsare ayaa ciidan aad u badan halkaasi u diray oo weerar ku qaaday waxaana ay la kulmayaan iska caabin kale oo adag dhinacyadu waxay u muuqdaan kuwo isku adeegsanaya hub aad u culus isku awood sheeganaya dagaalkana aad ayuu uga duwan yahay dagaaladii hore maalmihii la soo dhaafay wixii ka dambeeyay markii ay iyaguna soo rogaal celiyeen TPLF-ta waxa ay soo kulaaleen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Amxaarada halkaas oo ay kula dagaalamayaan ciidamada militariga Ethiopia dhinacyada guulo ayay kala sheeganayaan oo midba midka kale waxa uu sheegayaa jab iyo qasaaro culus in uu soo gaarsiiyay uljeedka ugu weyn ee TPLF ee magaaladan ku soo weerartay waxa ay ku sheegtay inay doonayso inay nolol ama geeri gacanta ugu soo dhigaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waa sida ay hadalka u dhigeen laakiinse lama huba mana jirto cid cadeyn karta in Abiy Ahmed uu ku sugan yahay deegaankan halkaas oo dagaalada ugu qarar ay ka soconayaan waa deegaanka Debrecen wararka sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in diyaaradaha dagaalka iyaguna duqeyn xoogan ay fulinayaan haba ugu darnaadaan diyaaradaha loo yaqaano droonka kuwaas oo looga shakisan yahay in ay yihiin kuwa Turkiga uu farsameeyay ee Bayraktar TB2 warar kale oo madax bannaan waxa ay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ay doonayaan inay sidoo kale dhabarjibin xoogan ku soo sameeyaan ciidamada TPLF ee gudaha gobolka Amxaarada ka dagaalamaya ciidamo tiro badan ayaa laga soo geliyay dhanka gobolka Canfarta sidoo kalena waxaa lagu soo waramayaa in dhanka gobolka Tigreega ay u baxeen ciidamo kale oo aad u badan kuwaas oo kooba ka dhaqaaqay waxaana la filayaa in dagaalka maalmaha soo aadan uu la soo baxo noocyo kale oo wajiyo cusub ah taas oo qalqal keeni karta sidoo kalena aan la ogeyn halka xaaladdu ay ku dambeyn doonto Abiy Ahmed labada maalin warbaahinta lagama maqal lagamana arag koleyto waxa uu soo hadli doonaa marka ciidamadiisu ay guul gaaraan ama ay aag qabsadaan hase ahaatee deegaano badan oo horay TPLF looga saaray ayay markan dagaaladu dib ugu soo laabteen TPLF-tu waxay ku haminaysaa inay dib u qabsato magaalooyinka Kombolcha iyo Dise halkaas oo markii hore ay isaga carareen markii ay u adkeysan waayeen awoodda militariga Ethiopia iyo inta la socota waxaa intaasi dheer dagaaladan xaalad bini'aadanimo oo aad u halis ah oo laga soo sheegayo deegaanada dagaaladu ay ka socdaan iyo kuwa aanay ka socon intaba ama guud ahaan si kale haddii aan u dhaho gobolada Tigray Anfar iyo Amxaaro halkaas oo dadkii gaajo ay u geeriyoonayaan gurmadkiina la gaarsiin la yahay oo hay'adihii gurmadka geel lahaa labada dhinac ay dhibaatooyin kala kulmayaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay in la dhibaateeyo shaqaalaha gargaarka ee gurmadka bini'aadanimada gaarsiinaya Ethiopia qoraal ka soo baxay qaramada midoobay waxaa lagu yiri dhibaateynta shaqaalaha bini'aadanimada ee ciidamada qalabka sida waa wax aan la aqbali karin
waxayna wiiqaysaa awoodda qaramada midoobay iyo dhammaan saaxiibadayada bini-aadamnimada si ay gargaar u gaarsiiyaan marka loo baahdo, iyadoo shaqaalaha gargaarku ay wajahayaan caqabado isa soo taraya. sidoo kale waa wax aan la aqbali karin in la maamulo gaadiidka xamuulka qaada ee loo adeegsado howlaha bini-aadamnimo ee la gaarsiiyo dadka u baahan ee ku sugan waddanka Ethiopia. qoraalka ayay sidaasi qaramada midoobay ku dartay. dhinaca kalena dowladda Ethiopia waxa ay sheegtay in dhammaan gaadiidkii gargaarka loogu geeyay Tigreega dhammaantood aanay dib u soo laaban oo ay la wareegeen ciidamada TPLF kuwaas oo ay u adeegsanayaan in lagu daabulo ciidankooda dagaalamaya. dowladda Ethiopia waxa ay sheegtay in arrintan ay iska indhatirayaan dadka isku sheega inay yihiin diblomaasiyiinta beesha caalamka, kuwaas oo ficilada TPLF ay sheegeen in ay indhaha kala leexinayaan. geesta kalena wakaalada wararka AFP waxa ay sheegtay in Turkiga uu hub ka iibiyo dalal badan oo Afrika ah oo ay ka mid tahay Ethiopia. ilo reer galbeed ayaa sheegay in Turkiga uu tiro aan la shaacin oo diyaaradaha dagaalka ah u diray Addis Ababa horaantii sanadkan, laakiin Ankara ayaa tan iyo markaasi ka jawaabin cadaadiska caalamiga ah. difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga ee loo dhoofiyay Ethiopia ayaa kor u kacay ilaa iyo 4.96 milyan intii u dhaxaysay bishii January iyo November, halka uu ka ahaa ku dhawaad 235,000 isla muddadaasi sanadkii hore, sida lagu sheegay tiro koob ay daabacday golaha wax dhoofinta ee Turkiga. geesta kale midowga Afrika iyaguna waxa ay bilaabeen inay ka cararaan magaalada Addis Ababa, taas oo ay ciqaab uga dhigayaan dowladda Abiy Ahmed mar haddii dhinacyada wada hadalka la iska diiday. sidoo kalena midowga Afrika ayaa ka mid ah ururada cadaadiska saaraya dowladda Ethiopia, iyaga oo gadaal ay ka taagan yihiin reer galbeedka, waxaana ay ku cadaadinayaan in dagaalada la joojiyo oo wada hadal lala galo TPLF oo liiska argagixisada ugu jirta dowladda Ethiopia. waxaa la sheegay in xubnaha midowga Afrika ay bilaabeen inay isaga baxaan magaalada Addis Ababa iyadoo magaaladaasi aanay wax dhibaato ah ka jirin. sidoo kalena waxay u muuqataa Abiy markan garbihiisa inay ka baxayaan dad badan oo reer galbeedka horey u raacaya. hase ahaatee waxa uu isaguna ku kalsoon yahay ciidankiisa iyo shacabkiisa oo wuxuu aaminsan yahay intii ay dhinacyadan oo idil ay garab taagan yihiin in aanay jiri doonin cid wax ka qaadi karta dagaaladan ay sii socon doonaan. reer galbeedka Mareykanka uu hogaamiyo waxa ay ku daaleen in ay TPLF keenaan magaalada Addis Ababa, bedelkii midaasina TPLF dib ayaa loo eriyay. dagaalada Ethiopia waa kuwa soconaya xilli walbana waa ay sii socon karaan, lamana oga sida ay wax ku dambeyn doonaan, laakiinse dagaalada hadda socda ayaa ah kuwa aad u qaraar oo aagag horle kusii faafaya, deegaano badan sii gaaraya, hub culus oo ay dib u soo baxsadeen oo ay keensadeen TPLFna ay ku dagaalamayaan. hubkaas oo ilaa iyo hadda la garan layahay sida ay ku heshay TPLF, maadaama hubkoodii gabaabsi uu ahaa, xaaladaasina ay ku kaliftay inay deegaano badan faarujiyaan. mise waxaa dhab ah in reer galbeedku dhanka Suudaan uu TPLF hub u soo marsiinayo. haddaba daawad, adigu maxay kula tahay aragtidaada? qaybta hoose kommentiga inoogu reeb. barnaamijkana falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV wanaga intaas. barnaamijkan mid ka xigeentan ku kulmi doona. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.